adoo qalanjaa maxaa ku qayiray marka hees bay ahayd heestii soo qaatay isagu xagga xumaanta ka eegay laakiin xagga xumaanta heestu ma ahan heestu waxay ahayd markaan aan ku guursano markaan guursataan aan awlaad idiin dhalno oo aan xoogaa jirkaygii kala dabco oo aan naasa yeelano oo aanu yeelano cawal yeelano oo aan daba yeelano markaas baad yacnaha naga tegasaano mid dhuuban oo qalanjo ahoo aan waxba lahayn baa markaa aad doonanaysaan markaa sheekadu saasay ahay isagina wuxuu ka dhigay diyaano war diyaanada qofka isaga ikhtiyaarkiisa leh hadduu marsanayo iyo hadduu daynayaba laakiin mid adag ku taalo wiilow ma ahan aad iyo aad baad u khaldan tahay una elad daran tahay hablaha Soomaaliyeedna afka kala baxday ninkan hadday lacag ka qaadatayna isaga siiyay wariyaa isii lacag khasab ma dhihin waxaan u baahanahay kii siinayana waa u siinayaa kan siinayna waxa uu ku oranayaa marka ama dawaha sisato ama baasto suugo leh ku soo gadato ama beer ku cunto iyada taas u taal qabso cashaqa qabo qalbiga meeshaad ku taal haday qaradu ogin oo maxallo bandigo waxba laga qori lahaa isiyo mahadooy rabo dadka wax ku هلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالقا كحولان شان كينا سودا مفشيال سودا بعد اللي مهميني ويا سبرتيانينا مقاقا هدوك سو قارو وقالكو عصوبتا هاي بليز هدافين نوصال سبسكرابتا وانتوكس وينوتا هاي لايك تسيدو كالي سو مقاقا ميلدر نو قارو سودا بعد ناي هاي هبينو مناكسان عنها وحي تعاويتا هاي هبين بيتا هاي إذنكو حيينتا هاي الله أعلم أني هبين وحيينتا هاي مناكسان بعد ناي هاي waxaan sarjeynaya in caafimaad ugu daawanasaan waxaan wada muuqaal yaab loo idinka yaabiyay oo baraha bulshada kaga qayaalsiiyay ninkii xamiye ahaa xaliya marka hadda uu la baxay laakiin magaciisu waa xamiye ninkaas u maleyn maayo inay gabadh dhalatay una maleyn maayo inuu gabadh dhalay laakiin waxaan u maleynayaa oo aan hubaa inay gabadh dhashay waa u maleeyaa waayo ifka yaa keenay Alexa soo goor ma aha marka saxaabta qaaliga soo dhawaada ay leeyahay muhiimini weeye wal ku fidaysan yahay weeyaan al-koofiyatul koofiya soo dhawaada ninkan warta uu hadlay wuxuu sheegay nimankii iyo gabdhihii warta madaxa xasaas u galiyay jaf hasku galiyay muxume dadku shaxaad iyo waxa lagu noolyahay iyo shaqo marka shaxaadkii iyo shaqadii horta gabdhihii wuxuu ka dhigay qurub xaaraana buu ka dhigay wuxuu yiri waxay ku warnaysaa horta muuqaalkeena yaan ka hor dhicin indhaadayga naagaha casriga waxa kamid ah gurigooda inta bariis cad la kariyo markaas ku leedahay waxa rabaa lacag aan chips ku gato sister aniga hotel ma ihi okay ma ihi hotel no hotel baatay yaa kugu yiri adiga iska camranaya iska boodaya iska ordaya iska doodaya cidna kuma darsan hadda koor waxa arkayay gabar tiri baarkayay waana soo xumeeyo afar awraan ugu soo dhalayo lacag baan ka cunayo marka xaqi uu ii qabay ayuu gabdhii Soomaaliyeed kala dhacay teeda kale horta waa kamid ku hadlayo waa xaraam weeyaan waayo Soomaali baa tiriye gabdhihii oo dhan buu cambaarayay maalinta aakhirana maxaa la oranayaa maalinta aakhirana waa la soo taagayaa yaa hadlay yaa lacagta bixiyay markhaati ma ka ahayd yaa gurigeeda in barsa cad lagu kariyay oo ninkan waa markhaati ma ka ahayd oo hebli ma dhahasa waa ma jawaabto marka ninkaas nin la xumeeyay horta waa u eg tahay kowdhe bal maqalkeena aan ku socono nin baad arkaysaa wuxuu ku leeyahay waa la socotaano daawadii waxa soo gatay maxal dhigi jiray garka bixinaysano garweynaaya shimugta naaga afaaraha sideelan naaga dhan ay rabo brada naag garweyn ma rabto naag waxay rabtaa okay kisa la iska rabaa lagu noolaada brada okay kiradu waa lacag cuntadu waa lacag bambriskuna waa lacag gar lama cunaaya baaba shaqayso hurdada ka kac brada kis sameey waqti isgali adigu isdhis jooji khiyaaliga okay markan wuxuu la hadlayaa wiilasha wuxuu yiri khiyaaliga ku nooshin joojiya
gabadhu gadh weyn ma rabto waxay rabtaa lacagtuna gabadhu ma rabto eeg isagu wuxuu leeyahay gabadhu lacag bay rabtaa laakiin wuxuu daba dhigay cunto baambar uu daba dhigay soo maaha haddaba dhigeen marka baambarka iyo cuntada makeligeeda cunaysa mise ninkii iyo caruurtii rarka dhan baa cunaya ninkan waxay gabadhu sheegtay baa daacada dhaba ninkan gabdhihii waa ku tuntay waxaan leeyahay kafkii hore kaaba dhacayay ee mar labaad dambdhaaf weydiiso gabdhaha Soomaaliyeed bal maqaalkeena xigaan ku socono meeqa jeer baad aragtaa nin dhalinyaro oo soo boosti garanaya naagtiisa oo dhahaya iyada iga badan 4 bay u dhigantaa iyo wixii la mid ah aw 4 uma dhigantee lacagtii 4taadan haynin lacagta 4ta raadi kan wuxuu yiri wili maqaalka lushiyum buu cambaareenaya marka horta way jirtaa gabadh 4 dumaraba kaafisa oo ninkeeda kaafisa uu deelo baxay baa jirtaa waana dhab weeyaan oo wuxuu naga kale ku doon lahaa tanun ka helay soo moogidin marka aad iyo aad baan taan ugu cambaareenaya ninka ragga isaga ka og ama lacag haysto ama yaan u haysan nabigeena waa ku sallallahu alayhi wasallam waa tuu yiri haddaad faqiir tihiin guursada marka gurigii faqiir iyo taajir ma kala lahan marka adna waxaad tiri lacagtii baad weedaye waa la guurso waxaas niyo wax ka soconaya ma ahan xaliyaa tiriyo waa sax qabanayaayo waxaanu doonaynaayo soo baranaa gabadh inuna xaliso oo bala ka arftaan maqaalka ka socono su'aashan baa soo laabatay adoo qalanjaa maxaa ku qayray adoo qalanjaa waxa ku qayray is cadayska dhafarta beenta ya lacagaha ragga aad ebarka ka dhigtay kugu maqan okay maqaalka wuxuu yiri waxaa ku qayray hadda hees bay ahayd adoo qalanjaa maxaa ku qayray marka hees bay ahayd heestii soo qaatay isagu xagga xumaanta ka eegay laakiin xagga xumaanta heestu ma ahan heestu waxay ahayd markaan aan ku guursano markaan guursataan aan awlaad idiin dhalno oo aan xoogaa jirkeygii kala dabco oo aan naasa yeelano oo aanu yeelano cawl yeelano oo aan daba yeelano markaas baad yacnaha naga tagasaano mid dhuuban oo qalanjo oo aan waxba lahayn ba marka aad doonanaysan marka shakadu saasay ahay isagina wuxuu ka dhigay diyaano diyaanada qofka isaga ikhtiyaarkiisa leh hadduu marsanayo iyo hadduu deynayaba laakiin mid adag ku taalo wiilow ma ahan diyaana ninka afkan ka yiri maalin barnaamijkan daawanayay Nairobi mikrofoonka la dhexmarayay rag Soomaaliyeed oo fara badan maqaxid harada fadhiyeen nin dahaba la waayay gabadh madow oo midabkeedii lama rabaan now waa la waayay nin walba wuxuu yiri gabadh cad baa rabaa xataa haddaan cadayn biirana u soo ibinayo oranaya walaal ismari habadha ismariye maxaa ku kilfay baa la yiri wuxuu yiri naag bilic leh halka mar soo cad buu marka arko marka uu yiri taydii waa madowda marka ma rabo marka hadii madowdahay buu yiri ana soo gaday buu yiri marka ha ismarso marka taana idinkaan ugu booriyeen aanu iscadeyno ismarmarno dawo kowde laakiin ninka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u qaldan tahay una elad daran tahay hablaha Soomaaliyeedna afka kala bax baan ku leeyahay walaalo afka kala bax hablaha Soomaaliyeed afaagu ma qabto gabdhaha Soomaaliyeed ceeb waa ka xadidan yihiin waana ka maldahan yihiin waana ka digtoono yihiin ma sheegin mid iyo labo shadaan qaato oo dadinku waa leeyihiin mid iyo labo shadaan qaato waa leeyihiin marka waxaan ku leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed walaasha weeye waa dhashay hadaa dhalna waa dhali doontaa wayna ku dhashay oo hoosteeda ka soo qaaday 9 biloodna cawsha ku waday waxaan ku leeyahay dhaqanka awoodid wiilo jooji kowde wiil ma tidin ninka weyn inta leeg baa tahay gabdhahan ayadana ku wadid kada hadaadan wax kale aadan doonayn wili anagu kuma nacaayin wili waan ku dambasanaa wili waxaan leenahay nin weeyaan banu soo noqdo laakiin waxa sida magac ku doono iyo caanbax horta magacii waa heshay caanbixiyana waa heshay kowde
waataa meel walba TikTok iyo media iyo Facebook iyo WhatsApp iyo meel walba laga baafiyay iyo lagu soo daray iyo muuqaalada lagu soo daray marka waxa ku leeyahay waxa wadduulo jooj aad iyo aad baan u khaldan tahay waadna khaldan tahay boqolkiiba boqol macsaashan ma xitaa gabdhaha Soomaaliyeed wili waanu waxa wadnaa maalinta dambe baalahan ka arfanaa waxa wada jooj oo kaleeyahay okay gabar Soomaaliyeed ay ma lahan ninkan haday lacag ka qaadatayna isaga siiyay wariyaa isii lacag khasab ma dhihin waxa saan u baahanahay kii siinayana waa u siinayaa kan siinayna waxa uu ku oranayaa marka ama dawaha sisato ama baasto suuga ah ku soo gadato ama beer ku cunto iyada taas u taala laakiin uu siiyo ma ahan eebna ma ahan weligeed bay Soomaalidu dhigtay walaalow waxa saan rabaa soo dar ama saaxiibka ka ahaado inaad dirka ka ahaado inaad tiga ahaado walaalka ka ahaado nin bini aadan oo ay wada sheegsanayaan ha noqotee laakiin adigu wixii iyo qori xaar la saagu walaaqada qori baa saagu walaaqada xaarka